waxaan hadaan xisbiga wadanahay waxa nasiib daran ugu ah oo qaranka Soomaaliland nasiib darro ku ah hadii laba qof wada yeeshaan wax wada yeeshiga labada qof wuxuu gaaraa bulsho xisbiga wadani wuxuu ahaa xisbi curdina xisbi heer lahaan buu ahay xisbi ay lahaayeen siyaasiyiinta Soomaaliland buu ahaa aqoonyahanka Soomaaliland wuxuu ka soo baxay asxaabtii ururada ee tirtirmaysay waxa jirta siyaasiyiin isku afgaran waayay loolanka madaxtinimo ee xisbiga wadani iyo siyaasadda iyo barnaamijka xisbiga wadani u gaar ah xisbiga wadani siyaasiga ama siyaasiyada ku jirta ee garan weyda halka uu marayo ee ka baxda oo uu hambalyeena balse waxa nasiib darro ah in siyaasiyiinta ka tagta xisbigan ay la soo fadhiyaan meediyaha oo ay caayayaan musharaxayga jigada madaxweyne musharaxaygu ay ma geeyo hadii wax ay ah uu geeyo anaga qabanayna anaga gacan yariyaashiisa ah anaga xisbigi ah anaga madax xisbiga ka ah in xisbiga la maago diyaar baan u nahay oo waayo waa xisbi cid waliba wada leedahay oo aqoon yahay ku jirto dumalaasiin hogaaminayso raali baan kaga nahay waxa mushkilada Rooda Axmed iyo Rooda yar oo ahay siyaasiyad ku jirtay xisbiga wadani oo ahay xogeeyay sportiga iyo ciyaaraha xisbiga wadani oo runtii anigu shakhsiyan gaar u aqaanay oo saaxiibada yahay oo siyaasaddiisa soo horjeeday oo Muuse Biixi garabkiisa taagan in musharaxayga jigada madaxweyne maalin walba caydo aflagaadayso inaan hore uga hadlo waan ka xishooday anigu oo inaan Muuse Biixi caayo ma aha teetarkaygu aad iyo aad baan uga cudur daaranaya Muuse anigu waxba oran maayo Cabdiraxmaan Cirano qofka maaga waxba oran maayo laakiin si waxaan u sheegayaa siyaasadda inaanay maanta cay taagnayn ee loolan taagan tahay oo kubaddu taarabuunka taalo oo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland isbedel ay u baahan yihiin anagu shacabka lacag ma siinayno baabuur ma siinayno dhul dawladeed ma siinayno waxaan wax ku hananaynaa barnaamij siyaasadeed waxa mushkilada oo aan hambaryo u diraya gudoomiye ku-xigeenkayga koowaad xisbiga wadani Mudan Axmed Muumin oo ku siiyeen gobolka Togdheer oo aan ku arkay gobolkan Togdheer isagoo sidii uu sharafta iyo karaamada ugu lahaa xisbiga wadani aanu ku lahayn ee Muuse dabadiisa fadhiyo aad iyo aad uga cudur daaranaya Axmed Muumin inuu halka teetalkiisi uu ka gobay siyaasigeeyay xalay xafada loo qabtay ee Mudane Cabdirashiid Xasan Mataan in aqoonyahan uu haan aqoontiisa ku qanacsanahay balse wuxuu garan waayay hurmuudka iyo tooshka u baxay xisbiga wadani waxa uu hilaacay ka uu u dhiibay madaxweyne ku-xigeenka qaranku oo ay heer wada yihiin oo meel kasta wada jeedaan anagu heer boorama heer ma kala sheegno mid musharaxa madaxweyne xisbiga kumiye afkiisa wuxuu ku dhiftay inay heer boorama heer siyaasadda u kala qaybsadaan anagu taa ma oranayno boorama waa gobolkii xadaaradda iyo aqoonta waa gobolkii ka soo jeeday diinta Soomaaliland waa gobolkii aqoonta iyo iftiinka Soomaaliland oo ahaa waa gobolka culimada ugu badan qarankan ay ka soo jeedo mar walba anagu gobolka awdal waa noo gobolkii hormuudka u ahaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland heer awdalna ma aha dadka go'an Soomaaliland ee waa dadka aqoonta iyo maskaxda u leh ee intifaacka Soomaaliland raadiyo.